xulka qaranka isboortiga degmada Garadag oo hogaaminaya gudoomiyaha wasaaradda isboortiga ciyaaraha mudane Maxamuud Xirsi Axmed ayaa u baxay magaalada madaxda gobolka Sanaag Ceergaabo iyagoo ciyaar saaxiibtinimo ku wada ciyaaraya dhigooda degmada Ceergaabo ay ka heleen martiqaad. waxa uu go'aankaasi ka hadlay gudoomiyaha isboortiga degmada Garadag mudane Maxamuud Xirsi Axmed iyo tababaraha xulkaasi Xasan Jaamac Gaadiid waxayna yiraahdeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan maanta waxaan la joogaa tiim ka mid ah tiimamka degmada Garadag ee isboortiga. tiimkaas oo ah tiimkii qaaday koobkii dhawaan aanu bilownay ee wareegii noo soo socday. tiimkaasi maanta waxay u kicitimi doonaan oo ay bishu 14 tahay waxay u kicitimi doonaan gobolka Sanaag oo halkaas ay kaga qayb gali doonaan kooxda kale oo ka mid ah gobolka Sanaag waliba degmada Ceergaabo oo ay la leeyihiin ciyaar saaxiibtinimo ayay u kicitimayaan. taageerada ayaa soo raacinaysaan. aniguna waan sii raacaya oo gudoomiyahoodii ah muddo ayay tababaranayeen. waa kooxan aad ugu kalsoonahay insha Allah guusha ayay soo qaadi doonaan. sidaas ayaa kula soconaysaan oo ku soo hambalyeynaysan iyo wanaaga uu gaaray inay kala qayb qaataan oo dhismaha garoonka ay ka qayb qaataan oo garoonka dhismihiisii insha Allah ta'ala waan rajaynaynaa inuu sanadkan noo dhismo. waxa kale oo jira laba xafiis oo ay maaragtay dhagax dhigeen oo ay hadda dhismaheeda ay bilaabayaan ururka dhalinyarada ee la yiraahdo Geyda oo noogu ballan qaaday inay laba qol ay noo dhisaan oo wasaaradda isboortiga iyo dhalinyarada degmada Garadag ay u dhisaan. iyagana aad iyo aad baan u hambalyeynaa. aan aad u firfircoon weeye. waxa dadaal iyo juhdi ayaan ku keenay dhammaan markaa dadweynaha ganacsatada haddii alla yahay ragga kale ee maartay xildhibaanada waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan isboortiga oo ay taageeraan oo taageeraan nala garab istaagan ayaanu isagana aad iyo aad u salaamaya oo isaguna aaninoo hagar baxay aad iyo aadna aan ugu kalsoonahay isboortigana wax weyn nagala qabtay oo halka maanta uu gaaray nala gaarsiiyay maxamed Dagadyare waxaan leenahay isagana guul baanu leenahay. wassalaamu calaykum degmada xulka degmada oo maanta ka ambabaxaya bisha 15 bisha ayay insha Allah baxaya ama 14 waxaana lagu martiqaaday gobolka Ceergaabo oo degmadani ka tirsan tahay gudoomiyaha degmada Maxamuud Xirsi ahna gudoomiyaha isboortiga oo abaabulka iyo hawsha ka dambeeyay isaguna shaqadiisa iyo hawlihiisa u dhigay oo ka hayn doono isboortiga xulka degmada. markaa ayaan kaga qayb galinaa ciyaar saaxiibtinimo baahda Yunus Zaarta TV-na waan salaamaynaa. waxaan anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada waxaan halkan maanta hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhalinyarada ama isboortiga xulka degmada Garadag oo runtii ah rag qaaliya koobo badan gobolka u soo hooyay guulo badan keenay runtii maanta loogu faano oo ah xulkii soo mara kii ugu qiimaha iyo qaayaha badnaa. waxaan idin leeyahay gobolka Tigsan waa gobolkiini idin kama leh. waxaa la idinka doonayaa dulqaad, waxaa la idinka doonayaa idaab, waxaa la idinka doonayaa ciyaar wanaag, waxaan idinka doonaynaa guulihii aanu idinka baranay ee waa Axmed Jaamac Aadan Axmed Digiro shabakada caalamiga Har Wanaag News Garadag.